kulan wacan wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha gorahan oo kale ayaa daawataan waxaynu ku soo qaadan doonaa suuqa kala iibsiga oo soo xirmay saaxiibadii ugu dambeeyay ee xalay dhacay kooxdii ugu badneyd ee suuqa gelisay lacagaha ugu badnaa xidigii ugu qaalisanaa horyaalka Premier League yimid dhammaan saaxiibadii suuqa kala iibsiga xagaagan ka dhacay ayaynu eegi doonaa ka hor waxaan ahay Cabdulqaadir Xuseen ee ku bilaawno suuqa kala iibsiga xalay ayuu soo xirmay iyadoo oo xidiga waaweyn xalay goor dambe ama waqtiyadii ugu dambeeyay suuqa kala iibsigu kooxoodu ama kooxo kale ay ku dhawaaqeen saxiixyadooda majalada Sky Sports ayanu ku hormareenay waxa ay soo saartay kooxdii lacagaha ugu badnaa gelisay suuqa kala iibsiga waxaana ay noqotay kooxda kubadda cagta ee Arsenal suuqa waxay gelisay lacag gaaraya 150 milyan haddana 20 koox ee horyaalka Premier League saddex kulan al ciyaaro horyaalka Premier League waxay fadhisaa booska ugu dambeeya yacni booska 20aad ee horyaalka kala sareynta Premier League fadhida aaminna waa kooxda ugu badan ee suuqa lacagaha ugu badan gelisay xidiga way la wareegtay laakiin xidigo yacni la garanayay ama magacyadoodu kubadda cagta title wanaagsan kala ma ahan marka Arsenal sidaas xal xitaa ugu dambeysay mar xidig kale ay ku dhawaaqaysay marka Arsenal saxiix kooxdii ugu badneed ee lacagaha suuqa kala iibsiga gelisay ay noqotay sidaas loo diiwaan geliyay sidoo kale xidigii ugu qaalisanaa ama lacagii ugu badnaa laga soo bixiyay horyaalka Premier League yimaado wuxuu noqday Jack Grealish Manchester City ayaana sidaas sameysay markan aynu eegno saxiixyadii xalay goor dambe dhacay iyadoo oo suuqa kala iibsigana sidaas loo soo gabagabeeyay xidigii kooxda kubadda cagta ee Barcelona Antonio Griezmann wuxuu isaga tagay gigada Camp Nou waxaana dib ugu laabtay garoonka Wanda Metropolitano oo ku ciyaarto kooxda kubadda cagta Atletico xidigan markiisii horeba kooxda kubadda cagta ee Barcelona halkaas uu kaga soo dhaqaaqay xalay kooxda kubadda cagta ee Atletico de Madrid way ku guuleysatay in xidigan qaab ama oo Arsenal ay ku qaadato kooxda Atletico hadii xidigan ay sii jeclaysato halkaasna amaahda intuu ku sugan yahay waxay awoodaan in xidigan la wareegto 40 milyan oo kaliya ay kooxda kubadda cagta ee Barcelona laacibkan ay ku doonaysaa sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Real Madrid waxa ay ku dhawaaqday xidiga ama saxiixa Eduardo Camavinga xidigan aad lagu xiiseenayo horyaalka Premier League iyadoo Arsenal iyo sidoo kale Manchester aad ay u xiiseenayeen laakiin kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa xidigan ku dhawaaqday saxiixiisa waxaana uu ka tirsanaa kooxda kubadda cagta ee Rennes xidigan kooxda kubadda cagta ee Real ayuu kamid yahay hadda waa Eduardo Camavinga xidigan sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Arsenal waxay isaga tagay daafacoodii Hector Bellerin kaasi oo qabtay horyaalka dalka Spain laacibkan waxa xalay goor dambe sidoo kale saxiixiisa ku dhawaaqday kooxda kubadda cagta ee Real Betis oo ka tirsan horyaalka dalka Spain sida ay soo xiganayso maanta majalada The Sun sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Arsenal qudhoodu saxiix cusub ay sameeyeen laakiin waynu eegi doonaa Leeds United kooxda horyaalka Premier League ka dhisan qudhoodu xalay way ka faa'iideysteen saxiix cusub ay heleen waana daaficii kooxda Manchester United Daniel James kaasi oo kooxda Manchester United oo ka tirsanaa Manchester United ayaa xaqiijisay in xidigan Daniel James uu ka tagay kooxda oo ku biiray kooxda Leeds United oo qalinka ugu duugay heshiis sanadood xidigan oo kooxda Leeds uu xil ciyaareedyada Sweden uu ku qaadan doono kooxda kubadda cagta Manchester United-na waxay soo bandhigtay saxiixa Cristiano Ronaldo kaasi oo kooxdu kaga soo dhaqaaqay kooxda kubadda cagta ee Juventus ee ka dhisan horyaalka dalka Talyaaniga marka xidigan Ronaldo Manchester City ku garaaceen toddobaadkii tagay dhamaadkiisii marka Ronaldo shalay la soo bandhigay ama kooxda Manchester United saxiixiisu ay soo bandhigtay sidoo kale Emerson Royal waxa uu tijaabada caafimaad u maray kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur xidigan waxa uu ka tirsanaa daafacyada kooxda kubadda cagta ee Barcelona kooxda Tottenham Hotspur Nuno Espirito Santo ayaana ku dhawaaqay kooxdiisa saxiixa xidigan Barcelona iyo Tottenham si rasmi ah ay xidigan ugu heshiiyeen 30 milyan oo gani ayuuna dhanka kooxda Tottenham Hotspur ugu wareegay laacibkan kooxda kubadda cagta ee Chelsea waxay Atletico de Madrid ay kala soo wareegatay laacibka qadka dhexe ee Saúl Ñíguez xidigan reer Spain kooxda kubadda cagta ee Atletico xagaagii tagay waxa uu kula guuleystay horyaalka dalkaasi Spain ee La Liga haddana waxa uu hadda dib u la midoobaya tababaraha Jarmalka Thomas Tuchel oo kooxda kubadda cagta ee Chelsea leelinaya kooxda ku guuleysatay horyaalnimada ee Yurub ee Chelsea saxiixyadeedu suuqa ay ka sameysay waxay u muuqanayaan koox faa'iido badan u keeni kara kooxda Lukaku hore ugu dhawaaqday iyadoo xidigaana qayb uu ka yahay marka Thomas Tuchel kooxdiisu aad ay isku adkeynayaan
hadda tusaalahaan kooxdan marka la leeyahay horyaalka Premier League ee ugu cadcad ay waxyaabaha keenaya waxaa qayb ka ah in kooxdu shax koowaad iyo shax labaad ee yeelan karto yacni ay leedahay marka loo eego xidigaha wada jooga oo kale tusaale ahaan Manchester City xagaagii tagay waxyaabaha kooxaha horyaalka Premier League kaga awood badneed waxaa qayb ka ah shaxda koowaad ee Pep Guardiola tusaale ahaan markuu u baahdo inuu nasiyo shaxda labaad oo kale marka aad eegto kooxaha kale shaxooda koowaad ee buu dhigmeen marka hadda Chelsea sidaas oo kale ay haysataa oo laba shax oo daba ayuu Thomas Tuchel uu sameeyay kooxda kubadda cagta ee Chelsea Musa Kean daayarkii kooxda kubadda cagta PSG dib ayuu ugu laabtay kooxdiisii hore ee Juventus xilli sidoo kale xidigan kubadda ama kooxda kubadda cagta Everton waqti uu ku qaatay si kastaba xidigan qaab amaah ayuu ugu laabtay kooxda reer Italy ee Juventus sidoo kale waxaa meesha ku jirta hadii xidigan Juventus qaab ciyaareedkiisu ay ka hesho kooxda reer Faransana laacibkan si xurey kala wareegi kartaa marka xalay saxiyadaas ayaa suuqa kala iibsiga ka dhacay horyaalka Premier League sanadkan waxaa ku soo biiray xidiga waaweyn Ronaldo Lukaku iyo sidoo kale Jack Grealish Saul Nigueza oo xalay ahaa saxiixii ugu dambeeyay ee kooxda kubadda cagta ee Chelsea iska xaadiriya marka saxiixii ugu qaalisanaa yacni horyaalka Premier League wuxuu noqday Jack Grealish kooxda kubadda cagta Aston Villa oo ka tirsanaa marka xalay kooxuhu qaarkood way ka faa'iideysteen fursadooda halka kooxaha qaarna ay ka faa'iideysan Liverpool oo kale suuqan wax saxiix kama aysan sameeynin ayadoo la ogahay inuu ka tagana xidigii qadka dhexe ee Jorginho Wijnaldum kaasi oo beeca xurta ugu biiray kooxda reer Faransa ee PSG marka waxa la isla Jordan Klopp ugu yaraan hadii uu san saxiix kale uu san sameeynin xidigan xidig booskiisa buuxin karo suuqa uu ka heli karaa ama uu keeni karaa kooxdu laakiin ayadoo sidoo kale shalay la xiriirinayo mar xidig ka tirsan kooxda kubadda cagta Inter hadda sidaas oo ay tahayna kooxda Jordan Klopp wax saxiixa suuqa kama aysan sameeynin Pep Guardiola qodiis kooxdiisu waxa la xiriirinayay weeryahan Harry Kane la xiriirinayay laakiin kooxda Tottenham si gaar ah gudoomiyahooda Tottenham Dani Levy ka yiraahdo waa kaga guuleystay kooxda Manchester City inuu ka cisto xidigan Harry Kane Ronaldo la xiriirinayay asigoo ku dhow xidigan ku biirisi taad Manchester soo gashay sidaas ayay kaga abdubteen kooxda Man Utd oo xidiga kubadiisa heerka kooxeedba marka hore halkaas aad ay kaga soo qaaday si kastaba Chris Bana xalay ugu waaweynaa saxiixyada suuqa ka dhacay ayadoo sidoo kale kooxda kubadda cagta Arsenal qodoodo hal saxiix sameeyeen waana ciyaaryahan ka tirsan kooxda kubadda cagta waxay sameeyeen ciyaaryahan indhayara kaasi oo la yiraahdo Tomiyosa wala xidigan nin ka tirsan reer Japan yacni waa indhayar Japanese kooxda kubadda cagta Arsenal wuxuu saxiixii ugu dambeeyay Mikel Arteta kooxdiisu ay sameeyeen marka waynu arkaynaa kooxaha yacni siday kaga faa'iideysteen suuqa kala iibsiga waxa ay soo ifbaxaysaa horyaalka Premier League markii si toos loo gala ama horyaalada kale ee Europe si toos ay wada bilaawdaan yacni hadda way socdaan laakiin markii kala bar la gaaro kala horyaalada kooxaha boosaska ay kala joogaan hadda Arsenal lacagay ugu badnaa suuqa ayada Ingiriiska leeyahay booska 20aad ee fadhisaa marka wax kasta inay isbedelaan macquula Chelsea qudooda saxiixada ay sameeyeen waa ay ka muuqanayaan waxtarkooda marka Messi qodiisu Francisco tagay wax badan laga filayaa Ramos oo halkaas kaga sii horeeyay Ashraf Hakimi qodiisu halkaas oo kaga horeeyay Wijnaldum baagdi Faransiis qodiisu xidigaha qabta xidigan qayb uu ka ahaa marka waxyaabahaasi yaa maanta ka cusub sportiga oo xalay suuqa kala iibsiga uu soo xirmay nabadgelyo